Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta markaa waxaan boot ku sameynaynaa ama aan ka bedelaynaa laptop Windows-ka. Marka waxaa lagaga baahan yahay kow inaad haysato flash taasoo ama 6 ama 8 ama 16 waxay doonayaan laakiin ku qaadaysa marka aad boot garayso Windows-ka iyo software-ka aad ku boot garayn lahayd iyo Windows-ki. saddexda ayaa lagaga baahan yahay. Marka software-kan ayaan anigu isticmaalayaa oo PowerISO ah. Marka double click baan leeyahay. Marka koobaad waxaa igu jirta aan intuso flash taas ayaa igu jirta taa ay KL ku qoran tahay 14ka. Marka taas ayaan boot garayn doonaa. Waxaan leeyahay marka continue waan leeyahay. Markaan software PowerISO soo galo continue aan dhahayaa. Kadib halka tools ay ku qoran tahay waan tagayaa. Create bootable aan ku yar celiyo. Kaas create bootable USB drive ayaan click siinaysaa. Kadib okay waan leedahay. Marka haddana dib ayuu soo kacayaa marka software-ku waa unregistered marka waan yara sugayaa daqiiqado ay qabanaya marka continue ayaan leeyahay. Kadib Windows-ka markaad halkaa joogto halkan image file ku qoran tahay waxaad tagaysaa meesha Windows kugu jiro click baad siinaysaa. Kadib ani halkan igu jira Windows-ka aan rabo ayaan soo qabanaya tan 7 rabo hadaan Ubuntu-ga rabo hadaan Windows 10 ka rabo XP a'uudu billah XP gan bari hore marka Windows 10 kan ayaan sameynaya open baad leedahay. Kadib markaad open dhahdo halkan flash uu ku waxaysiin waad aragtaa inay tahay waa general U disk ku qoran 16 GB. Marka halkan uu ku soo qabto waad arkaa. Marka start baad leedahay waa easy boot. Marka waxaynu sameynayaa boot. Marka flash-tan boot-ka ku sameynaya markasta haday data kuugu jirto waa inaad kala baxdaa sababtoo overwrite ku sameynaya wax kasta uu ka taatiraya. Okay baan leenahay. Bas wuu bilaabaya. Markuu inoo dhameystiro iyo Windows-kii sidii loogu install gareyn lahaa la socosho wanaagsan. Flash-ku inoo soo boot garowday. Marka hadda flash-ka ayaan soo qabanaynaa. Flash-ta ayaa waxaan ka gelinaynaa USB port-ka ayaan gelinaynaa si aynu boot-ka ugu soo kicino maadaama flash inoo boot garaysan tahay. Kadib waxaan sameynaynaa computer-ka ayaan shidaynaa. Computer-ka markaynu shidno HP weeyaan F9 ayaan la dhacinay si aynu boot-ka u tagno. Marka computer-radu way kala duwan yihiin. HP-ga F9 weeyaan marka waa Google garayn kartaa markasta kaad ku sameynayso. Kadib arrow-yada ayaan isticmaalaynaa si aynu u dhaqaajino kolba aynu mid u tagno si aynu flash-ta boot-ka u tagno. Marka flash ayaan tagnaa hadda USB hard drive oo kaas ayaan ku dhufanaynaa marka enter ayaa leedahay oo keyboard-kaaga isticmaalaya. waxyar gacanteeda ayaa laga arkaa screen-ka waa raalli ahaanaysaan mobile ayaan ku duubaya. Kadib shaashada in yar madow ayay yar ahaanaysaa inta Windows ka soo kacayo. Marka hadda soo kacay marka koobaad Windows-ka install gareynaysa sidaan ku soo bixi marka boot-ka soo dhaafo. Marka next baad leedahay waa luqadda inaga kuma jirto marka English ka isticmaalana next baan leenahay. Kadib install ayaynu ku dhufanaynaa. wax yar baa halkan yara qaadanaysa. Marka Windows-ka saad moodaysan maaha waa wax iska easy ah oo qof kasta uu sameyn kara weeyaan. Kadib halkan markuu ku soo baxaa leedahay accept kadibna check ayaad siinaysaa next baad leedahay iyadana. waa license terms-ka Windows-ka waan aqbalay weeyaan adoo waa sheekadoodaas. Kadib waxaad sameynaysaa halkan upgrade kuma sameynaysaa sababtoo ah upgrade ma sameyn custom ayaan ku dhufanaynaa oo ka hoosa. Marka waxaan leenahay custom install. Marka halkan saad ka artaan hard drive ku jira partition badan ayuu leeyahay. marka waan iska wada dhiligareynaya ilaa Windows-ka hore ku jira waxaas oo dhan ka saaraya waa formatting camal weeyaan. Haduu laakiin hadii ay Windows-yada uu ku qaybsan qayb wax kugu jiraan iska dhiligareyn sababtoo xogtu kaama baxayso. laakiin hadii uu hal mid ku ahaa oo Windows-ka yani crack ama cilada ku timaaday iska wada dhiligareen. Marka ani hadda kun waa Windows-ka ku jiro dhamaan ka saaraya. waxaan rabaa kaliya inaan intaan hal mid u sameeyo aan ku install gareeyo marka waan wada dhiligareey hadda. Marka halkan markaan joogo unlocate space buu dhahayaa. Marka new-ga intaan taabto waan qaybin karaa oo partition waan u sameyn karaa. laakiin waxaan dhahayaa next anu sidaan aan ku wadayaa marka partition ma sameynay. Kadib wuu ii bilaabayaa. halkan saad aragtid wuxuu leeyahay copying Windows files marka
copy windows file 0 ga marka tick buu mid kasta markuu dhameeyo xagan hoosan waxaan ka aragnaa in installing windows uu soo qorayo marka kan ayaa qaadanaya getting files ready to installation kan ayaa ilaa 100 tagaya marka kana waqti yar qaata kana waan yar dabanaya kamarada kadib aan kusoo noqonaya hadda 98 maraya uu dhameeyay kan kale hadana aadaya marka mid kasta tick buu siinaya markuu inta wada dhameeyo kadib wuxuu sameeyaa inuu istemiyo screen-ka maadaama windows installation-kii uu ku dhamaaday markuu inta wada tick siiyo 5 second meelaha ayuu ku qabanaya marka waa inaad flash waad ka saartaa already marka uu ku dhamaystirmay windows-kii inuu kugu install gareeyo computer-ka marka flash ayaad ka saartaa xagan hoosena waad aragtaa installation-ka hadda windows installation-ka halka uu marayo uu sii dhamaanaya marka hadda u hooseysa kaliya ayaa noo dhawan markuu ka tick siiyo already isteminaya 5 second ayuu noo qabanaya marka waad aragtaan hadda uu soo baxay 5 second ayuu noo qabanaya windows-kii saa ayuu noo install gareysan yahay kadib waxaynu dhiman waana magacii iyo intuu soo kacayo aan kaliya waxaynu hadda meelihii u dambeeyay ayaan maraynaa marka halkan waxaan dhahaynaa next waa location-ka USA aan iska dhahaynaa next waa keyboard-ka ayaan ka wada language-kiisa marka waa language iyo region iyo waxyaalaha weeyaan waa sidii mobile-ka oo kale markuu cusub yahay maadaama de setup cusub aan ku haynay ayuu saa u sameynayaa oo ku cusub marka network uu leeyahay maad rabtaa marka waxaan leeyahay I don't have internet click baan siinayaa marka internet halkan waxaan dhahayaa continue may kan dhahay kan dinabsada marka ma halkii uu soo celiyo I don't have internet kadibna kan dhinaca kale geeska ayaan ku dhufanayaa with install setup waxaan waa wax magaca ayaa halkan ku qoraysaa computer-kaaga magacaada bixinaysa ama magacaaga marka ani hadda baan iskaga qoraya kadib next aan leeyahay bila password baan ka dhigaya adiga password-ka rabtaa gashan kartaa halkan marka waxaan waa yani marka wax kasta install gareynaysa wuxuu ku bilaabmay yani ku weydiinaya inaad adigu leedahay iyo magacaaga waxyaalahaas oo dhan marka intan qof kasta waxaan karaa marka accept baan kan iska dhahayaa aduu laakiin ama design agreement iskaaga intaad akhrisato waxaad doontaad ka dhigi kartaa yani waxa shirkadda maadaama soo saartay waa privacy iyo termskeeda weeyaan marka windows-kii saas ayuu hadda inuu install gareysan yahay uu dhameystiran yahay kadib waxaanoo dhiman inuu dhaho inaan tagno desktop-kii aan isticmaalo marka halkan hay ayuu ku leeyahay hadda uu inoo soo bilaabaya windows-keeni uu dhamaystir we are getting everything ready for you uu ku leeyahay marka wax kasta waa inoo diyaar marka waxaa laga yaabaa inuu qaato daqiiqado yaryar waan sugaynaa marka halkan kusoo this might take several minutes don't turn off your PC marka halkan mara inaad computer-kaaga damiso maaha waa inuu ku shidnaado wakaas hadda desktop aan tegi doonaa wax ka dambeeya ugu dambeyntii waan dhamaystiranay hadda waxaan taaganahay waa desktop-kii laptop-ka marka windows-ka qaabka loo install gareeyo waa intaa weeyaan u dhameystiran yahay marka wax kasta waa inoo diyaar oo ka wada artaan windows 10 weeyaan wax kasta hadda waa diyaar weeyaan marka yani the application iyo waxaad ku shumanaysaa adig ku taala marka kan hadda anay saasan ku dhameystiray windows-ka lagu sheegay lagu leeyahay waxba windows lagu shubaya ama lacag lagaga qaado waa intaa weeyaan waxaad ku sameyn kartaa waa 20 daqiiqo 30 daqiiqo wax ugu badan kulli speed-ka computer-ka ay ku xiran tahay kuwa laga yaabaa 15 daqiiqo kaliya aad ku dhameystirto marka aad iyo aad u mahadsantihiin hadaba ilaa halkan nala soo gaadheen waxaan rajeynayaa hadda kadib laptop-madiina idinku hagaajisan doontaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.